السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن كسو دوادا channel ka dhaxalgal asxaabtayda meel walba aad dunida ka joogtaan maanta waxaan ka hadlaynaa sida loo furto Facebook Flowers waxaa rabtaa inaad soo muujisid Facebook Flowers kaaga aadna aragtid dadka kalena ay arkaan marka aad gashid profile ka qaybta kore okay hadaba ila soco ee raac tillaabooyinkan marka hore furo Facebook kaaga marka furtid waxaad dooranay qaybta ugu sareysa ee dhinaca midig ee saddexda dhibcood taabo hoos u sii wad waxa si tagay setting and privacy marka tagtid waxa ku soo baxay setting adana setting ka si taabane marka taabatid hoos u soco wad meesha ku qoran tahay public posts ayaa taabane adana public posts marka taabatid meeshan wax ku qoran waxaad ka dhigay wax walba public qaybta ugu horeysa hadda waxa waa friends ku saaran tahay public ka dhig sidoo kale mid kale friends ku saaran public ka dhig all wada public ka dhig tanna public ka dhig tanna public way tahay wax dhan wada public ka dhigay koo marka inta gashid okay ka soco en marka xigta waxaad imaanee meesha oo Facebook gaaga qaybta kor ku soo laabo waxaad ku rufanay meesha profile ka uu ku qoran yahay magacaaga okay aad dhahe waxaad taabanay qaybtan oo add history dhinaceeda saddexda dhibcood ee hoose ayaa taabanay hadana markaas aad dhahdid qaybta kore ee ku qoran tahay edit profile ayaa taabanay marka taabatid hoos aad soo deganay cover hoostiisa meesha bio ay ku qoran tahay hoosteeda waxa ku qoran details faahfaahintaada meesha ku qoran tahay meeshana taabanay marka details marka taabatid hoos u sii socone flowers kaaga meeshan ay ku jiraan mujeedaa waxa laga yaabaa inaysan tig ku saarneen marka flowers ka tig saaro tig marka saaratid hada flowers kaaga waa 830 save ayaad leedahay marka saas dhahdid waa ka soo baxay waxa ku soo muuqanaya marka flowers kaaga qaybtan hoose ku soo muuqanayaan marka waxa rabaa inaan kugu dar hadii aad rabtid inaad flowers badan aad ku darsatid oo qofka marka ku darsanaysid add friend uusan ku soo dhahaynin oo flow ku soo muuqata aad rabtid waxa taabanay meeshan saddexda dhibcood aad taabanay koow marka taabatid view as aad leedahay view as marka dhahdid hadda add friend aa ku qoran meeshan qofkii kugu soo darsan raba flow kuma soo dhihi karo add friend aa soo qormaysa marka flow inta aa ugu dhigtid waxa u baahan tahay step kan inaad raacdid koow ka laaba meeshan waxaad ku laabaneynaa meeshii oo setting and privacy ku laabaneynaa markaan ku laabano setting aan leenahay hoos u sii socone meeshan ay ku qoran tahay privacy setting ayaa taabane okay marka taabatid hoos u soco meeshan ay ku qoran tahay who can send you friend requests meesha ay ku qoran tahay everyone meesha ay tahay ayaad waxa ka dhiganay friends of a friend saaxiibadeeda asxaabtooda inay igu soo darsadaan raba kuwa kala flow ay soo dhaan okay ka tag marka hadda waxaan ku laabanaynaa marka meesha daayaan ku laabanaynaa profile qaybta magaca markaasaan dhahna saddexda dhibcood taabane view as aad leedahay dadka kale soo soo muuqanayaan meesha daay ku qorneed muujada add friend hadda maxaa noo soo qormay follow marka qaabkaas ayaad u samaysan kartaa followgaaga hadda rabtid inaad soo muujisid iyo hadda rabtid in badhanka followga aad soo muujisid tallaabooyinkaas raacisa aad u maasantihiin wabillahi tawfiiq